عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا ما انت عيد ونكسا عيدا. عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا ما انت عيد ونكسا عيدا. عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة. عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم walaalayaal ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga warrami doono neefkan xoolaha ah oo kamid ah xoolaha Ilaahay noo xalaaleeyay ee mayeedhaanka ah, qaabka loogu udxaysanayo iyo shuruudaha la inooga baahan yahay. marka koowaad udxada waxa loo gowracayaa neefka geel iyo lo iyo ari ku danaba ha noqdee Ilaahay subhanahu wa ta'ala. qaala Allah ta'ala Ilaahay wuxuu yiri فصل لربك وانحر. ربك أتك ونجورع إلهي أنبلو جورع وح سبحانه وتعالى. وحلينا جبها هي مركن وضحيسنا إنه إن شروط بوحنه شروطها مركها وحويا أو كم إذا شرط كود وحوية إن حولها أي نكود حيسن أيهين حولها الله يقنا ما يرانك أو أهجيل إيه الله ده إيه أريك lama ogola marka digaaga iyo kalluunka malay lama ogola sidoo kale lama ogola dameer farowga iyo xoolaha kale marka horeba Ilaahay noo xalaaleeyay subhanahu wa ta'ala. marka laga reebo geel iyo looda iyo ariga ayuu bal rabaa inaad gowracdo. maxaa u daliila waxa u daliila aayad quraana oo Ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام وحوي وحولا ما يرانكا بالاتفاق waxa la isku waafaqsan yahay in xoolahaasina ay yihiin geel iyo looda iyo ariga. shardiga labaad ee leenooga baahan yahay waxa weeye walaalayaal waa in neefkaasi uu gaadhay da'dii loogu talagalay. nabigu wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam waa inay gaadhaan da'da loo yaqaan musinna. musinnana waxa weeye geel waa inuu 6 sano jir yahay oo uu dhameystay 5 sanadood. looduna waa inay 3 jir tahay oo ay dhameysatay sanadkii labaad. waa yahay ariguna waa inuu yahay marka 2 sano jir oo uu dhameystay sanadkii koowaad oo kaamil uu dhameystirmay. rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadii aad weydaan marka waxaad gowracdaan al-jad'a. jad'u waa maxay marka? waa neefka idaha ah lax ama wanku doonaba ha ahaade ee da'diisu ay tahay 6 bilood. marka 6 bilood kama yaraan karo. waaya rasuulku hadaba muxuu ku udxaysan jiray? nabigu wuxuu ku udxaysan jiray idaha waliba khaasatan wanka. والنبي waxa ka sugan xadiiskii saxiixaynka ku yaalay rasuulku waxa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam oo saxaabigi wuxuu yiri dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bikabshayni amlahayni aqranayni. nabigu wuxuu ku udxaystay 2 wan oo amlahayni cadaan ah midabkoodu cadaan buu ah. culimada qaar waxay leeyihiin cadaan iyo casaan ayaa isku jira ama casaan iyo midabka guduudan iyo cadaan. kuwa kale waxay leeyihiin cadaan iyo madow. waxa kale uu yiri aqranayni geesana way lahayn 2 geesa way lahayn. dabahuma biyadihi nabigu gacantiisa ayuu ku gowracay. sama wa kabbara bisimkana wuu qabtay takbiirtana wuu akhriyay. markuu gowracayay waan idin tusi doonaa qaabka loo gowraco. wuxuu yiri bismillaah allahu akbar ayuu yiri. waxa kale uu dhahay saxaabigii ووضع رجله على صفاحهما. jilibkiisa ayuu nabigu dusha ka saaray neefka qoortiisa. marka la gowracayo ayaan idin tusi doonaa practically insha Allah ta'ala. way marka xoolaha aad ku udxaysanayso waxa ugu wanaagsan inaad sunnada nabiga raacdo oo waa inuu noqdo maxay ido gaar ahaan waa inuu wan ka sii noqdo. walibana waa inuu ka sii noqdo midabkiisu cadaan uu yahay ama cadaanku ku badan yahay. walibana waa inuu yahay mid geesale. taasa ugu wanaagsan. laakiin haddaad ku udxaysato laxda ama geela iyo looda
lab iyo dhidi ku doonaba ha noqday way ka gudmaysaa weey shardiga saddexaad ee leenooga baahan waxa weeye waa inuu neefku ka maran yahay ceebahaas markaas waxa kamida inuu cawaran yahay nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam neefkaas marka aad gowracaysaan waa inaanu ahayn almariida albayyin maraduha mid xanuunsanaysa oo jirada haysaana ay cadahayba oo muuqato waxa kale oo nabigu dhaal awra albayyin awruha ta marka cawaran ee ishi marka ay ka soo laalaato ama sida bariiska kale ay noqoto ay cadaatay ishi ama ishaba beeshay taana lama ogola waxa kale oo rasuulku yiri al-arja al-bayyin dal'uha ta marka dhitinays ee laangadhanimada iyo jiisnimadu ka muuqato way waxa kale oo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam al-ajfa allati la tanqa iyo neefka weyda to dhuuban ee maaragtay maqaar iyo harag yar iyo lafaysi saaran kana lama ogola waxa kale oo aan la ogolan bay dheen culimadu wixii inta la mida ama soo hoos kaliya maxaa kamid mid indhala gebigeedba dam ama lugta la gooyay ama gacanta la gooyay ama dhaawac weyn qabta kuwana lama ogola weeyaan shardiga kale ee afaraad ee loo baahan yahay waxa weeye waa inuu neefkan yahay mid adigu leedahay milkigaaga adaa hantay waa inaad adigu leedahay ama lagu siiyay marka waa inaad lahaanshaheeda leedahay hadii la soo dhacay oo tuugnimo ay kugu soo gashay iyo boob iyo dhac iyo burcadnimo lama ogola udxana kuma noqonayso waaye sidoo kale neef lagu dhiibtay oo lagu rahantayna oo lagu yiri noo sii hay ama rahan noogu sii hay yadana kuma baxayso shardiga lixaad ee u dambeeya waxa weeye leenooga baahan yahay waa inaad neefka gowracdo xilligii loogu tala galay oo salaada ciida marka laga soo baxo ay waqtigeedu bilaabmaa salaada ciida ee maalinta ciidul adxada salaada ciida marka laga soo baxo xilligeedii ba bilaabmaya ilaa iyo goormuu soconaya maalinta ciida saddexda maalmood ee ka dambeeya loo yaqaan ayaamu tashriiq saddexdaaba waa la gowrici karaa maalinta saddexaad saddexda maalmood baan hadda ka waramaya maalinta ciida ka dambeeya maalinteeda saddexaad bacda al-casr salaada casr illa inta soo dhan waxa weeyaan wad gowrici karta marka hadaad neefka gowracdo iyadoo aan salaadii ciida la tukanin ka hor udxama noqonayso hadaad saddexdii maalmood ee ciida ka dambeeyay markii ay qorraxdu dhacday kadib aad gowracdeen markaan udxama noqonayso marka waqtigeedu waa inta afar maalmood baan haysanaa maalinta ciida iyo saddex maalmood oo ka dambeeya habeen iyo maalin ba wad gowrici karta waxaana ku fadli badan hadaad rabto sidii sunnada rasuulka waxa ku fadli badan inaad gowracdo isla markaad salaada ciida saa uga soo baxdo inaad bisinka u qabato oo aad gowracdo hadaba iminka waxaan ku tusayaa walaalkayga muslimka walaashayda muslimada neefka xoolaha qaabka loo gowracay ee sunnada waafaqsan sallallahu alayhi wasallam neefkana wuxuu kamid yahay kuwan ku wadxaysanayno insha Allah ta'ala nala socda بسم الله الرحمن الرحيم walaalyaal marka ugu horeysad rabto inaad udxaysato neef xoolo ilaahay dartii u gowracdo waxa laga baahan yahay inaad mindida ama waxa aad ku gowracaysa aad si afayso ama aad si soofayso mesela mindida saasad dhahaysa oo si soofaysa si aad afu yeelato iyada isku xoqaysa insha Allah ta'ala adigoo neefka xoolaha ahna ka qarinaya waxana u daliila xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee nabigu uu yiri inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ilaahay wuxuu ku waajibiyay ihsaanka iyo samafalka cid wax walba fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu ad-dhabh marka aad wax dilaysaan dilidana maarayta hagaajiya marka gowracaysaan gowraca hagaajiya rasuulku wuxuu si raaciyay wuxuu yiri falyuhidda ahadukum shafratahu midkiin mindidiisa ha soofeeyo oo marka waxa weeyaan afha u yeelo si neefkii maaragtay markiiba ay u gowracdo oo ay u birayso waayahay iminka waxaan tusayaa neefka waa in loo jeediyo xagga iyo qiblada bismillaah walaalyaal neefka xoolaha marka aynu gowracayno waxaynu ku gowracaynaa bisinka iyo takbiirta waa nabigu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka uu neefka xagga qiblada u jeediyo jilibkiisan ama lugtiisan ayuu halkan qoorta saari jiray san uu qaban jiray dabadeedna mindida ayuu halkan ka marin jiray hunguriga isagoo leh bismillaah Allahu akbar ayuu dhihi jiray bisinka iyo takbiirta waxa kale uu dhihi jiray Allahumma hada anni wa an ahli bayti
ilaahayo kan waxaa loo udxaynayaa naftayda iyo reerkayga iyo qoyskayga marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii sidaas ay ahayd qofka muslimkaana markuu udxaysanaya wuxuu dhahayaa allahumma hada cannii wa can ahli beyti ilaahow kan waxa weeye anaa ku udxaysanaya iyo